kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada warka subax ee tinta wararka qodobada xiisaha badan ee faaqadaada wararka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah dowladda Kenya oo wada qorshe halis ku ah al-shabaab hogaanka ahlu sunna iyo wasiir sabriye oo ku heshiiyay hal arin maxay tahay halkaas arin halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa Kenya oo iska fogeysa go'aankii Abiy Ahmed ee xiisada ka abuuray igad ninka bedeli Abubakar al-Baghdadi iyo dalka uu ka soo jeedo oo la ogaaday halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa fatahaada beledweyne musiibo rabbaani ah mise musiibo gacan ku sameysa maxay tahay halkan ayaad kaga bogan doontaan wararkii ugu dambeeyay weerarka jabadu ku qaaday saldhigga Boorama ayaanu halkan daawada idinka socodsiin doonaa wakiilka sare ee Kenya u fadhiya dalka Britain ayaa sheegay in dowladdiisu ay wado qorshe al-shabaab loogu joojinayo lacag ay hesho si loo yareeyo awoodda kooxdan iyo weerarada ay fuliso dalalka Kenya iyo Soomaaliya wakiilkan ayaa sheegay in Kenya ay raadinayso taageero caalami ah si al-shabaab looga hor istaago dhaqaalaha ay ka hesho sida dadban wuxuuna tilmaamay in saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamka looga baahan yahay inay qaataan doorkooda waxa kale oo uu sheegay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka looga baahan yahay in lala socdo sida ay ula dagaalamaan lacagaha ay hesho al-shabaab isagoona intaasi ku daray in siyaabaha ay al-shabaab dhaqaalaha ku hesho ay qayb ka tahay cashuur ay ka qaadaan ganacsiyada ka jira gudaha Soomaaliya ugu dambeyn wakiilka Kenya u fadhiya UK ayaa ku baaqay in si wada jir la isaga kaashado dagaalka al-shabaab oo uu sheegay inay khatar ku tahay guud ahaan gobolka Kenya ayaa hore qaramada midoobay ugu dalbatay in al-shabaab lagu daro liiska kooxaha loogu yeero argagixisada walow taasi ay ku guuldareysatay waxaana la sheegay in arrintaas ay ka lahayd dano gaar ah maadaama xiisad xoogan oo salka ku haysa muranka badda ay kala dhaxayso dowladda federaalka ee Soomaaliya al-shabaab oo ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ayaa sanadii ugu dambeeyay xoojisay weerarada ay ka fuliso gudaha dalka Kenya oo ciidamo ka tirsan howlgalka AMISOM ay ka joogaan gobolada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya kulan u dhaxeeya hogaanka ahlu sunna wal jamaa iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye kaasoo xalay ka dhacay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kulanka oo ka dhacay xarunta Inji ayaa waxaa diiradda lagu saaray dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan magaaladaasi si xal looga gaaro kadibna loo sii gudageli lahaa wajiga labaad ee dhismaha Galmudug oo loo dhan yahay sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna ee dhawaan gudaha u soo galay Dhuusamareeb looga saari lahaa magaalada looguna celin lahaa xeriyihii ay ka soo baxeen kadib shaqaaqadii lagu rasaasiyay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xuseen warar hoose oo helnay ayaa sheegaya in wasiir Sabriye iyo hogaanka sare ahlu sunna ay isku raaceen in ciidamadaasi dib loogu celiyo saldhigyadoodii ammaankana lagu wareejiyo ciidamada nabad sugidda ugu dambeyn labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan khilaafka ka dhashay guddiga farsamada maamul u dhisidda Galmudug iyo sidii loo soo aftiri lahaa balse ma jiro wali xal rasmi ah oo laga gaaray arrintaasi ahlu sunna oo ka hortimid guddigii dowladda ayaa mid kale ugu dhawaaqday Dhuusamareeb kaasoo sixiyeen xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug taasoo xaaladda ugu sii dartay lamana oga sida ay wax noqon doonaan dowladda Kenya ayaa iska fogeysay inay wax kaalin ah ku lahayd go'aanka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo xogayaha guud ee ururka igad ugu magacaabay wasiirkii hore arrimaha dibadda dalkiisa go'aankan ayaa ka careysay dalalka Soomaaliya iyo Djibouti oo doonaya inay helaan xilkan maadaama Itoobiya hayso guddoomiyenimada ururka oo ah Abiy Ahmed halka Kenya uu ka soo jeedo xogayaha guud ee xilka ka digay Maxbuub Macalin diblomaasiyiin ayaa laga soo xigtay in talaabadan ay ka heshiyeen Kenya iyo Itoobiya si ay isku weedaarsanaan labada xil ee ugu sarreeya ururka ayadoo la filayo in xilka guddoomiye ee Abiy Ahmed uu la wareego Uhuru Kenyatta si kastaba diblomaasi Kenyan ah ayaa u sheegay wargeyska Daily Nation in Kenya aysan waxba ka ogeyn go'aanka lagu magacaabay warkan gabiyahu isla markaana uu yahay mid si shakhsi ah uu u qaatay Abiy Ahmed waxaan rumaysanahay in magacaabista xogayaha guud ee wanaagsaneyd in lagu sugo ilaa shir madaxeed ururka oo laga wada tasho ayuu yiri diblomaasiga Kenyaanka waxa uu sheegay in go'aanka ay dalalka ee ururka u arki karaan mid muujinaya in Itoobiya aysan doonayn in cid kale ay wax ku yeelato hogaanka ururka taasna aysan sax ahayn Itoobiya oo xilka guddoomiyenimo ee ururka haysay tan iyo sanadkii 2010 halka Kenya haysay xilka xogayaha guud tan iyo sanadii 2008 Soomaaliya weligeed ma aysan qaban mid ka mid ah labada xil ee sare ee ururka waxaana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dadaal u galay in la siiyo xilka xogayaha guud balse waxaa muuqatay in Abiy Ahmed uu ka takarfalay awoodiisa hogaamineed dowladda Soomaaliya wali si rasmi ah uma hadlan arrintan hase yeeshee waxay wada dadaalo ay qayb ka tahay Djibouti oo xiriirka ururka looga dhigayo kuwa wareega oo dhammaan dalalka xubnaha ah
ay u siman yihiin. Kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay geerida hogaamiyihii kooxda Daesh Abu Bakr al-Baghdadi, ayaa waxay su'aalo badan dul hooganayaan cidda la wareegi doonto hogaaminta kooxdaasi. Waxaa soo ifbaxaya warbixino sheegaya in Abu Bakr al-Baghdadi uusan ahayn muddooyinkii u dambeeyay hogaamiyaha dhabta ah ee sida tooska u waday howlgalladii ururka Daesh, balse uu arrimahaasi ku wareejiyay una xil saaray guddi gaar ah. Sidoo kale waxa ay soo taraya su'aasha yaa Baghdadi dabadii ururka u dooran doona hogaamiye, iyadoona ay soo shaabaxayso cidda bedeli doonta uguna caansan ee magaciisa loo adeegsado marka la dhaho yaa bedeli doona Baghdadi. Ciraaq Turkmaan Cabdullaahi Qardash, loona yaqaano Xaaji Cabdullaahi al-Afri, ayaa ninka lagu wado inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee Daesh, wuxuuna dhalasho ahaan ka soo jeedaa deegaanada Mosul ee waqooyiga Ciraaq. Qardash ayaa hore waxa uu Abu Bakr Baghdadi ugu magacaabay daryeelka xaaladaha muslimiinta, sida ay bishii August baahisay wakaaladda wararka ee ururkaasi. Dhinaca kale, sarkaal ka tirsan gobolka oo dalbaday in la qariyo magaciisa iyo wadanka uu ka soo jeedo ayaa wargeyska Newsweek u sheegay in Qardash uu geli doono booskii Baghdadi. Sarkaalkaasi ayaa waxa kale oo uu ka dhawaajiyay Baghdadi uu ahaa hogaamiye sharafeed aan shaqo ku lahayn howlgallada uu fuliyo ururku, wuxuuna yiri Baghdadi wuxuu sameyn jiray oo kaliya doorasho ha ama maya, balse shaqo kama lahayn qorshahan. Faahfaahinno dheeriya ayaa ka soo baxaya weerar saaka lagu qaaday saldhigga dhexe ee magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Weerarkaasi ayaa waxaa mas'uuliyadiisa sheegatay hogaamiyaha jabhadda weerarka soo qaaday ee Suldaan Wabar, isagoona xaqiijiyay in weerarkaasi ay fuliyeen ciidamo isaga ka amar qaata. Suldaan Abu Bakr Wabar ayaa sheegay in ujeedka uu ka dambeeyay weerarkaasi ay ku qaadeen saldhigga dhexe ee Boorame oo ahaa in ay xukuumadda Somaliland tusaan in dib u soo rogaal celisay jabhaddii uu hogaamin jiray isla markaana ay awood leedahay. Suldaan Wabar ayaa sidoo kale waxa uu xaqiijiyay in weerarkaasi ay wax khasaaro weyn ah uu ka soo gaarin ciidamadiisa, iyagoona nabad qaba ay ku soo laabteen fariisintooda ay markii hore ka baxeen. Wabar ayaa sheegay in jabhaddiisu ay sii wadi doonto dagaalka, isla markaana ay awoodda ciidankiisu tahay mid iska caabin karta ciidamada gobolka Awdal ee xukuumadda Biixi. waa sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland Sareeye Guute Faarax Maxamed Mire oo isaguna goordhaweyd oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa weerarkaasi ku sheegay mid ay fuliyeen dabley hubeysan. Taliyaha ayaa waxa uu ku sheegay qaswadayaal ay weerar ku soo qaadeen saldhigga dhexe ee magaalada Boorame, isagoona xusay in ciidamada ay iska caabin kala hortageen rasaastii ku soo fureen. Waxaa kale oo taliyuhu sheegay in ciidamadii ku sugnaa saldhiggaasi ay weerar lagu qaaday ay yareedeen qoladii weerarka ku soo qaaday ilaa ay ka gudbeen xuduudka Itoobiya. waa sida uu sheegay. xaaladda guud ee magaalada Boorame ee gobolka Awdal ayaa hadda mid degan kadib markii ay saaka marti u noqotay dhowr saacadood oo dhawaaqa rasaasta iyo xaalad amni darro.